عليكم ورحمة الله وبركاته وشانلka taqwa Soomaaliya channel iyo qaybtii barnaamijka diiniga ahay oo labaad iyo Ramadaankii labaad Ramadaan mubaarak channelka subscribe like share samee commentigana hoos ku reeb bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواء channel كينا تقول سومالي channel ما أنت فيديو عصب إن شاء الله تعالى أو كهذا دونا زوجات النبي جينا عليه الصلاة والسلام زوجات أو كليتها بردونا إن شاء الله تعالى قصة ذا أي وحكة فائدة دونا أي هجرة ذا أي سيد رسولك عليه الصلاة والسلام أي قرصته هذا channel كوك صبته سبسكرايب نصار سيدا هرو صعدا لايك نسوي شير جري أصحابتك وشير جري فيديو هذا نو بلا بنايا ما أنت إن شاء الله تعالى وحكة هذا زوجة رسولك عليه الصلاة والسلام ماريا القطبية magaceeda waxaa lahaa maariya bint shamcuun aan lahaa waxaana waay reer masar ay ka timid iyada fa rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar walba wuxuu jeclaay asaga inuu dadka yacni dhexdooda dhigo kalsooni inuu dhexdooda dhigo jaceyl badan inuu dadka dhan isku wada keeno oo mar walba rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo jeclaay fa waxaa arkay yemen camal wuu ammaani jiray wadamaha qaar oo carabta wuu ammaani jiray sida masar camal sida yani wadamo kasta inuu ammaani jiray calayhi salaatu wasalaam sida yemen camal wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yemen waxaa waa ardal xikma ardal cilm waaye oo dhahay yemen sida masar camal sida yani wadamaha dhan inuu wuxuu jeclaay calayhi salaatu wasalaam inuu yani isku wada keeno oo jeclaay fa mar walba rasuulka calayhi salaatu wasalaam muluukda oo risaalooyin u diri jiray yani wuxuu u diray risaalooyin oo wuxuu u diri jiray muluukda fa wuxuu diriyay 14 رسالة أو حقدري 14 ملك أم بقر حلقاسي رسالتي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى المقوقس المركز حال لها ينك أو حاها بقرك هاي مصر قال لها مركز أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن لم تسلم فإن عليك إثم كذا وكذا وكذا يعني رسالوين كيس أنصاصي عملي هاي والله أعلم markaas wuxuu u diray xaatib bin abi baltaca oo u diray yani safiiro ahaa markaas markuu xaatibka oo u geeyay risaalada muqawqis wuxuu dhahay wallahi inni a'lam in rasuulkum qad kharaj yani waa ogahay rasuulkiina inuu soo baxay waxaan u maleeyahay oo dhahay min ghayr al-arab yani waxa u maleeyahay inuu yahay yani arab oo aheena u maleeynaaye marka wuxuu dhahay islaami kariyo dhahay laana waxa ka cabsaa qadbigan waxa waa kuwa ansaarta ah ilaa hadda magacaas waa la dhahaa aqbaat allaha kuwa oo krishtanka oo gaalada oo masaarida aqbaat allaha فمقوقس رسالة أخرى رسولك عليه الصلاة والسلام فهدية بدن وأدري لعجو ذهب يعني يعني هديون أو قيمة بدن كوفة لسمر أو أدري رسولك عليه الصلاة والسلام هدية مركو وحوكو دري لما جارية أو ماريا القطبية هي جارية كلت أول لها ولا شيء أول لها نسرين والله أعلم أو كدري هدية ده يعني إيكو حي هاي نصير الجواري كلمة هين يعني لو الجواري هذا خصوصيات إسكالية يعني خصوصيات هستان marka xaatib hadiyadii iyo kulli oo soo qaaday iyo wuxuu soo daray labada jaariyad oo muqawqiska soo dhiibay markii labada gabdhood yani wadankooda ka soo baxeen ku koreen intaas joogeen ee ka soo baxeen markaas u socdaan wadan kale oo ka seenina u soo baxeen markaas ooyeen maariil qadbiya iyo walaasheeda ooyeen murugooda markaas xaatib oo arkay yani iko oynayo arkay markaas oo qisad oo u sheegay qisada wuxuu u sheegay haajar radiyallahu anha oo ahayd nabigeena ibraahim alayhi salatu wasalaam xaaskiisa uu sheegay laana haajar iidan waxay ahayd masriyad oo ka soo bax oo soo haajartay ahayd marka haajar qisadeeda ee ugu sheekeeyay markaas xaatibku waxa dhahaa yani qisadii ugu sheekeeyay oo haajar dhibkee soo martay rafaadkee soo martay rasuul yani waxay guursatay nabi ibraahim alayhi salaam ay guursatay qisada haajar dhan ugu sheekeeyay markaas saas u fiiriyeen farxayeen markaas inta madiinada la iimaanay ka hor subhanallah labada gabdhood ba islaameen waxay dhaheen ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah markaasay markay madiinada imaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee soo gashay ee salaantay markaasoo rasuulkeena oo baxsaday markaas walaasheedana wuxuu siiyay xasaan bin thaabit radiyallahu anhu oo siiyay markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu guursaday yani wuxuu dejiyay meel oo baltaca laha meel oo adiga geeda leeyihiin oo yani meeshaas camal oo dejiyay sidoo yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam u ixtiraamo bii'aday ka timid la'aan waxay ka timid saciid masar ay ka timid fa bii'adaas ay ka timid oo ixtiraami jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa maalmaha kamid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu xaaskiis u tago raba laakiin yani meel dhan boos dhan ma jirin markaas xafsa xanuunsatay waxay dhahdeen rasuulkeen yani way weydiisatay way istidaantay inay baxdo ee tagtay guriga aabaheeda fa rasuulka calayhi salaam uu ogolaaday way baxday markay baxday markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay xafsa ay baxday guriga aabaheed aad Umar bin Khattab radiyallahu anhuma rasuulka calayhi salaam wuxuu dhahay maariya igu wac yani hada qolka la hayla wuxuu dhahay maariya igu wac maariya yani waa loo keenay maariya marka loo keenay subhanallah xafsadiya soo noqotay
رضي الله عنها markaas xafsa ay xanaaqday waxay dhahdeen yani maba helin miya qol oo qolkayga oo ahaynay dhahdeen yani maxaa u soo gashay qolkayga ma ahayn qol kale ma weysay qolka Caaisha maxaa u tagi weysay qolka kale maxaa u tagi weysay yani way xanaaqday aad codkeedu u dheereeysay farasuulka alayhi salaatu wasalaam wuu dajinay yani tartiib isdaji ha qeelinin tartiib markaas rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay atardayn an utalliqaha احرمها على نفسي وان لا تاتي مره ثانيه markaas ay dhahdeen okay yani wuxuu dhahay rasuulka alayhi salaam wuxuu dhahay yani ina furo yani iska xaaraantimeeyo camal markaas iyada qanacsan saxid dhahday waayahay xafsa radiyallahu anha waxay dhahday maadaama taxrim على نفسك وتطلقها يعني maadaama adiga iska xaaraantimeeyo sidoo filaysido ee dhahday yani khalaas aniga sirtaada ma sheegay qof u sheegayna malaha markaas rasuulka alayhi salaam markay ka baxday Caaisha ay u sheegtay radiyallahu anha Caaisha markay ka baxday Sawda loo sheegay Sawda markay ka baxday Zaynab yani xaasaska rasuulka dhan ogaadeen Madiinada dhan wada ogaatay markaas rasuulka alayhi salaam oo xanaaqay oo yani oo naagaha dhanka wada tagay bil الله أعلم. فرسولك عليه السلام وحول تجمال بورة أو لها مال أدي مشربة أو لها مشس وحاول سيد صومعة وحاول مال ير أو لوعي بهذه السواء. كسر رسولك عليه السلام كون ماشي صومعة عمل قهوة تجي أو حول حارس يعني حول حارس أو لها مجلس رباح عبد وحول قف أن يئيسوا قليل. مركز عمر بن الخطاب رضي الله عنها قائم هذا مركز رسول كان ما ناقيز فري يعني رسول كان طلق زوجاته مركز الله نعم. إيه كما أوجا حقيقة لكن خبرك أفافي إنه فور رسولك عليه الصلاة والسلام ناجيز آل فافية مركز عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول كان راضية مركز أركمش صحوه وين الرسول الصح الله فوق يعني كرة سارية هاي مركز أركي يعني بورتين وسهل رسولك عليه الصلاة والسلام مركز أركي حارس كي رباح وأركي مركز هاي يا رباح استأذني لرسول الله يعني إيه رسولك عليه الصلاة والسلام إنه إيه أذنه إنه أقله مركز رباح مركز قال جذها فرباح مركز أقل رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام وجيس أجيفه أو هاي أو أركي يعني ورسولك عليه السلام مو جوابين يعني مو شيء رباح إنه عمر بن الخطاب بناك أو تاجين مو جواب رسولك عليه السلام لأنه وين مركز رباح أنت لابتو حوله رسولك عليه السلام ما أدلك يعني مو أقول إني سوق الشيء ده مركز عمر بن الخطاب أو لابته وحدا عمر بن الخطاب ما أنت لبها ضنا ونقي وحوتجي من نفس بورتي وتجي رباح ولا هذا لأنه وأذن إنه رسولك عليه السلام أو قال مركز رسولك عليه السلام سيدي حال كيسوها مركز وين رسولك عليه الصلاة والسلام مركز يعني رباح وحوله يعني هاي يسوق لي إليه عمر يعني بحنا ما دهين يعني مركز هذا عمر أو بحيا هذا ما لنت حال عمر بن الخطاب وإمامه مركز عمر بن الخطاب عد كيس أو ديري سيد الرسول كان عليه الصلاة والسلام أو مخلوق مركز وحوله عمر بن الخطاب يا رباح استأذني الرسول يعني إنه أقول الرسول عليه السلام إيبي ديو هاي والله إنك هلا إنه حفصة يعني حفصة وحاول زوجتك الرسول كان عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب هذا ليه وحوله ما كهد لا يقول إني لن أسأله عن حفصة مركز رباح مركز أو قالي أو وحو أرجع الرسول كان عليه الصلاة والسلام أو فديه مركز أو شيء مركز الرسول عليه السلام ما دهين هي ما يبى مسيلين مركز رباح صون قضي وحوله يعني الرسول كان عليه السلام كو قالان عمر بن الخطاب وحوله مركز صون قربي الرسول عليه السلام رباح أوعى سحوله رباح تعال يعني أوعى عمر أوعى وده مركز عمر رباح انتبه عمرك أوعى عمر خالص وقال مركز عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول عليه السلام أو قال وحو أرك الرسول عليه السلام أو ميل جيفا أو يعني ميل أكو جيفنا ميل أو يعني لنا عيسى لن إيه حنوجسي وحو أرجع حتى يعني وحو نكسها مقار أو غنم مكسها الصومال مكسها لكن غنم مقار كيسة أو كسلي وحو أركو كلاتو يعني وحو عناي الشعير بعصر ما عرفت شعير كأه أو بيكو درسناي أو عناي عليه الصلاة والسلام مركز عمر بن الخطاب وحو ده يعني كسرى قيصر يعني كل يوم وضع كسينا كسرى قيصر حرير كجيفانو أو ده هذا جنا صار ما وجيفته مركز وحو ده رسول عليه الصلاة والسلام لهم الدنيا ولنا الآخرة يعني إيك الدنيا ده لسي أنا كان آخر دارنا مركز عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسولك عليه السلام وحو ده يعني يا رسول الله ناقة ما كحناقي يعني ناقة ما كحناقي فأنا كل جوجور إله سبحانه وتعالى كل جوجور جبريل كل جوجور صحابة كل جوجور أصحاب تذا أهل المدينة أنا كل جوجور أو ده مركز سلسلة آيات كريمة وشكته وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما أنبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وأن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والمؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم سورة التحريم وين مركز عمر بن الخطاب وحو داي حفصها دي وح اي كوغو سميسي اي فصح انا مدخيدا جرو
markaas rasuulka calaih salaam wuxuu dhahay may isdaji hawan calayk isdaji oo dhahay markaas rasuulkeena oo qoslaya yani cumar bin khataabna wuxuu rabay rasuulka calaih salaam inuu xaalka ka bedelo qof faraxsiiyo rabay markaas cumar bin khataab wuxuu dhahay markaa joogno oo dhahay naagaha nimankooda yani sidii u cabsanayaan dirbiga saas u sii jeesa jireen oo dhahay haddana ahlal markaa madiina la imaado ansaartii naagaheena bedeleen markaas yani naagti xoog awood weyn ay leedahay yani ninka ka awood badan tahay amal markaas rasuulka calaih salaatu wasalaam oo qoslay markaas cumar wuxuu u dhahay rasuulka calaih salaatu wasalaam aطلقت حفصة يعني حفصة ما فرتي يعني كونه وحو لها مكوي دينا فيريا هذا يعني ابو مهما كان ابو قبرتيس وحفصة مركز وحو يعني اطلقت حفصة يعني حفصة ما فرت مركز لها لا والله ما طلقت يعني ما فرنا لها مركز وحو لها الله اكبر خبر كده ما انتشر يعني اوفافي فأيضا كريم كسيدة شيء يا أيها النبي لما تحرم أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يعني رسولك عليه السلام مركزه يعني دارتيسة يعني كفارة كديبين كفارة دارتا فمفاجأة ما شتي الوحاء هاد ماريا القطبية سبحان الله يعني أوريلتي يعني رسولك عليه الصلاة والسلام مكو ماريا القطبية أرسا أنا وحي جرت لحدا إيكوسانو سبحان الله يعني سبحان الله قصة سيدة إبراهيم عليه السلام إبراهيم ناكتا مصر يكتمدي ويقورستي إسماعيل أولا يعني قصة وحي شابهة قصة هاجر رضي الله عنها أي شابهة سي فدadka maanta oo niyad jaban oo dhaleenin oo dakaatiir leh dhahda ma dhalaysiin meel qof aragta dakaatiir dhahaysa ma dhali kartid oo intaas oo cunug ilaahay siiyo subxaana wa tacaala mar walba raxmad ilaahay lagama quusto فماريا القطبية waxay dhahdaa يعني uurkeeda way qarinaysay لأن naagaha kale ka qarinaysay لأن maseera jir wala maseera markaas waxay dhahdaa ilaa aa ka dhalay markay dhashana waxay dhashay wiil Ibrahim allaha إبراهيم الله wiilkaasi wiilka markay dhashay oo rasuulka calaih salaatu wasalaam wiilka oo arkay oo aad iyo aad ugu farxay markaasoo cunuga habsiina oo shumina oo urfana markaasoo albaabaha dhan garaacay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam yani cunugiisa ku faraxsana markaasoo albaabaha dhan markuu wada garaaco wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam unduruu maada razaqana allah yani arka ilaah subxaana wa tacaala wuxuu igu irsaaqay arka yani cunuga aad iyo aad ugu faraxsana calayhi salaatu wasalaam markaas waxay dhahay cunuga markuu jiro 1 sano iyo wax yar adi 1 sano iyo adi inta naas kale goona 1 sano iyo 10 bilood amal markuu jiray meelahaasi فمركز رسولك عليه الصلاة والسلام wuxuu dhahay يعني waxa u yimid Jibriil عليه السلام oo yimid markaas wuxuu dhahay ya Muhammad adrik Ibrahim fa inna nafsuhu taqahqah يعني waa dhimarwa markaas rasuulka عليه الصلاة والسلام oo orday markaas wuxuu u galiyay Maariya markaas arka cunug iyadoo cunuga heeso oo heeso زائد weynayso cunugii yariiska ahaa saqiirka ahaa oo sakaraadka haayo يعني سبحان الله cunug wuxuu ahaa sanad iyo wax la jiro yani cunuga markuu boodaayo istaagayo socod baranayo oo qoslaayo oo lagu faraxsanayo ahaa subxaan allah laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam cunugii markuu sakaraada oo arkay oo inta habsiyo oo yani oo macsiye markii cunugaasi nafta ka baxday markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ooyay calayhi salaatu wasalaam يعني آد ugu xum oo يعني u ooy rasuulkeena عليه الصلاة والسلام markaas oo maqooladiisa يعني hadalkiisa oo زائد مشهور u yahay oo ah اللهم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون markaas عمر بن الخطاب wuxuu dhahay أو تبكي يا رسول الله markaas rasuulka عليه الصلاة والسلام wuxuu dhahay إنما الرحمة أنزلها الله علي markaas rasuulka عليه الصلاة والسلام wuxuu dhahay والله يا إبراهيم إني أعلم إني سألقاك في الجنة والله إبراهيم واهبا يعني والله واهبا ولهي إنا جنتك أركي دونه حزنت عليك حزنا غير هذا markaas hooyadiisna wuxuu dhahay يعني ماريا القطبية ابشري فإن الله سيكمل رضاعته لك يعني رضاعته في الجنة يعني ناس نوجينيسي حليgiisa يعني oo dhinta asaga magta naas nuujinay waxa ilaa subxaana yani rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ilaa subxaana tacaala ku dhameystiri doono aan cunugaaga naaska u dhameystiri doonta jannada riwaayad kale waxay dhahay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhahay inni ara sayukmil yani ilaa subxaana tacaala oo soo sakhiraayo qof oo u radaacays cunuga في جناتك إلهي إذنكيس يعني في جنات النعيم يعني سيدو قلبي هذا إلهي سبحانه وتعالى أو أدجيو هو يضع عنق هذا الصغير أو كالنتي أنا عنق آدي أجعل على رسولك عليه الصلاة والسلام ما أنت قصدين أنت سيكو إكتها ساسين ومعي ساسين وفيعنات ما أنت قصدين إن شاء الله تعالى محاك فائدة دونا وحاك فائدة دونا كو الصبر عند الشدائد يعني كو إن الصبر تدمرك أو مصيبة ما أنت كسو واجه مصيبة عنق صغير كان أنتو يعني رسولك عليه الصلاة والسلام كل أنواع المشاكل ومصائب وأركي عليه الصلاة والسلام فرسولك عليه السلام يعني dhibaatada soo maray qof ibn aadan oo martama jirto
فمر والba waxaa lagaa rabaa inaad siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad baratid quwad ka qaadid oo sida rasuulkeena u sabirtid mar walba lagaa rabaa فقف والba cunugka dhinta saqiir ee waxaa dhehna insha Allah tacaala jannada wada kulmaysin hadduu ilaahay yiraaho tan labaad ka faa'iidina qisadayna waxaa waaye inaan marnaba niyad jabin هذا ماريا القطبية وحاجر تلحن إيكوسن مركو إله سبحانه وتعالى أولاد سيها نبي الله إبراهيم عليه السلام ووينا مركو إله عنك سيها نبي الله زكريا عليه السلام ووينا مركو إله يحيى سيها فمروا البوحة لقاربا إن إله سبحانه وتعالى وحرناتid فأنا وحا أركضت بدن لها ما يأذي من اللي كرتيد صان يعني واحد دكاترة واحدة شيء صار لك دكاترة العقل ربطها وإله سبحانه وتعالى متانوين سيه أنا إنهيك وأركي فسبحان الله يعني كستو رزاق إلها أولادنا إلها ديبو يعني وحكستن إلها ديبو فإله سبحانه وتعالى هدو وحق عمتيسو كوها ابن آدم كعبسنين وحيالها سدا قوركا سدا إرزقا سدا أولادا سدا عافماتكا سدا هنتدا سدا وحاس أن قفي ابن آدم كعمتيدو كوكين سكرت معهن وحاوا وحكست قعمت يعني قعنت إله سبحانه وتعالى يقولتا لكن ابن آدم كمحارقر ربع الدلالة لقربا إنا محارقر صبح انتك على الشقاء آدد صبح يعني إنا الجهد كسمي سدا لقربا توكل كن إلهي وديسين فإن شاء الله تعالى فيديو جين انت سوق يد إلهي يرى سبحانه وتعالى فيديو يحق إن شاء الله أو بدبر دونا يقصد عصبة فهمي دونا ليلة القدر إنه عرفه إن شاء الله تعالى يذكر بدل إنه ذكرنا نجربه ففيديو يحق إن شاء الله تعالى كلنت دنبو حيصة أفر ونكسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم حسنت داوشة هذا قروح بدن جزاك الله خير سيدا هور أوصل على القناة كإلى سبسكرايب لايك شير السلام عليكم.